بروفيسور عبد إسماعيل بل marka hore aragtidaada ku aadan heshiiskan saddex geesoodka ku aadan dekada berbera ee ay wada siixdeen Somaliland DP World iyo Ethiopia walaal marka ugu horeysa dadka ku dhageysanayo adigu waa salaamantihiin intaanan arag dheeraada gelin haddii meel dad ay gashanayaan maalgashi ay ku samaynayaan oo masalan ka soo qaad labadeena oo kumbani wada leh ayaa doonaya maalgashi inaynu ku samaysano magaalada Laascaanood ama magaalada Ceergaabo dawlad baynu markaa heshiis la gelanaa dawladdu waxayna siin kartaa kow in la dhaho cashuur laynagama rabo 10 sannadood waxay odhan kartaa cashuurtii 50% baan inaga daynay laakiinse kumbanigaas iyo dawlad kale oon ahayn dawladda dhulka leh weli lama maqal iyagoo heshiis intay soo galeen qayb la siiyey markaa su-aasha meesha ka taagan ee la weydiin karo qolooyinka hargeysa degan waxa weeye madaxda ah dadweynaha Ethiopia maxay ku mutaysatay inay 19 hesho ilaan lacag ma gashanayso waqooyi ama Somaliland su-aasha weysay dadweynaha inay weydiiyaan sidee bay ku timiday ma lacag bay Dubai dhigteen oo markaa maalgashiga ka qayb galaya mise waxa weeyaan baad laga qaadayo dadka degan Somaliland oo la leeyahay haddii halkan saad soo marayo berbera ka tagayo jiri labiya tagayo annaka soo untadu noo socotaa dabeecaddu noo socotaa markaa annaka cashuuranana sida taasoo kale laguma arag marka waxay u eg tahay walaal qolooyinka madaxda ka ahaa markii heshiiskan la saxay ama la soo qoondeynaya ka horeysay dawladda hadda ka dhisan magaalada Hargeysa inayna fahmin xaqa dadku ay leeyihiin masalan marka haddii marka laga soo qaado maalgashiga Dubai samaynayso Ethiopia maalgashi ma samaynayso Dubai baa samaynaysaa Dubaina waxa weeyaan iyo DP World iyo dawladda Imaaraadku waxay waayahan dambe soo xamuushadeen inay ummadda Soomaaliyeed ka shaqaystaan meesha joogaan ama xamar ha joogaan oo baarlamaanka ay kamid laaluusha siiyaan ama kuwa boosaaso degan wax kale ha siiyaan in laga shaqaysto waxaad moodaysaa xidhiidh istaraatiiji inuu ka dhaxeeyo Ethiopia iyo Imaaraadka taasina ay keentay in lagu xiniyo siibo dadka degan dawladda sheeganaya magaalada Hargeysa degan in lagu xiniyo siibo marka 19 laga siinayo boqolkiiba 19 kaas waxay lahayd cid kale hadeena qaadan dawladda Hargeysa ka dhigan inay qaadato Ethiopia marka iyadu abaal inay ku qabto in meel kale aan Djibouti ahayn oo u soo marto badeecadeedu ay helaan ba faa'iidadeedu ahayd laakiin sayninka waa baad cad oo laga qaadayo dadka Somaliland degan marka guud ahaan heshiiskaasi dabcan waxaad leedahay markaad eegto sharciyan iyo siday wax u socdaan wax hore loo arka maaha waxa weeye haddii maalgashi sidan horeba u sheegay walaal dad samaynayaan de waa inay Ethiopia soo cadaysaa dawladda Somaliland sheeganaysaana ay soo cadaysaa in kumbanigan DP dawladda Ethiopia boqolkiiba 9 ay ku leedahay laakiin sida markaa inay waxa weeye ilaan kumbaniga wixii maamulaya inuu kumbanigu la saxeedo madaxda Hargeysa degan heshiiska galaan Ethiopia waxa kursiga soo fadhiisiyay ayaa yaab leh walaal way waxaad ogtahay saxiix heshiiskan waxa uu ku soo aaday iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu booqasho ku joogay isutaga Imaaraadka Carabta markii uu Muqdisho yimidna waxa uu sheegay in uusan waxba kala socon heshiiskan sharci darana uu yahay dadka qaarna waxa ay qabaan shaki ku aadan waxa isku soo beegay safarka ra'iisul wasaaraha iyo saxiix heshiiskan maxaan ku macneyn karnaa arrintan ama kaag ayaa lagu macneyn karaa walaal ama kaag iyo yaab iyo argagax ayaa loo malayn karaa waxa weeye horta dawladda xamar fadhida ee farmaajo madaxda uu ka yahay xasanna uu ka yahay Khayrana uu ka yahay ra'iisul wasaaraha weli may dhisin siyaasad istaraatiijiga oo hagaysa amuuraha dibadda ee dadka Soomaalida ee degan jamhuuriyadda lama arag meel ay isku soo bandhigeen siyaasad amuuraha dibadda arkaanta hagaysa iyo sida loo jaangoynayo مثلا haddaan tilmaam ku siiyo markaasi
ra-iisul wasaaruhu waxay ahayd waa inuu sii ogaado in markuu meesha tago ilan dawladda Dubai wuxuu socdaa imaaraadka dawladda imaaraadkuna qayb iyadaaba iskale inta badanba DP World iyadaa leh taasi in sidee loo ogaan kari waayey in meesha saxiix lagu samaynayo oo Ethiopia ka qayb galayso sidee lagu ogaan waayo waxa weeyaan wasaaradda amuuraha dibadda iyo dadka la taliya Xasan Khayre inayna ka warhayn waxa socda waa mid weeye hadday ka warhayeen ra'iisul wasaaraha markaa lagu daayay inuu meesha iska tago oo runtii ceeb isagana ugu filan waxa weeye markaa isagana dee u daran dawladdana u daran markaa dhinacad u qaadidba meel ama indhala-aan lagu socdo ama se dee waxaan ummadda u qalmin loo qarinayo labadaa waa mid weeye markaa intuu ra-iisul wasaaruhu soo noqdo intuuna soo noqon waxay ahayd markuu u tagay qolooyinkan imaaraadka ay dhul soo tustusayeen amuurahan maxaa loogala hadli waayo weeye taasi waa mid haddii aan la ogeyn wax markaa waxa weeye dee dawlad soomaaliyeed ma jirtee dad indhala ayaa iska socdo habeen gudcura gudaya weeye hadduna markaa taa inay ogaato wey waay xukuumaddu waxay sheegtay mawqifkeedana ku caddaysay ra-iisul wasaaruhuna uu sii xoojiyey in sharci darre heshiiskaasi uu yahay haddii heshiis la gelayana ay dawladdu mas-uul ka tahay baarlamaankuna uu meel marinayo marka in la yidhaahdo sharci darro waayo heshiiskaasi ma ku filan tahay mise tillaabooyin kale oo dheeraad ah ayaa loo baahan yahay in la qaado waxa weeye walaal dadka Soomaalidu inkastoo ay 30-40 sanadood dambe ugu hay kharibmeen mahmaahyo cajiiba ayay lahaan jireen iyo halhayn waxa jiray baadiyaha markaasi in nin doqona ama qof doqona ayaa maalin walba wuu lumaa waa la soo helaa wuu lumaa waa la soo helaa marka maalin dambe ayaa waa la soo helay markaas intuu qoslay buu maxaa la igaga faanfaani soo beriba lumi maayo waxaan uga dambeeyay markaa in la dhaho oo dawladda Soomaalidu waxay dhahdo bahalkaas xal kama nihin waxa weeye imisa jeer baa saa la oran doona marka ma waxa weeyaan ciyaal bay Soomaali noqotay caruura oo dhalaan waxba kala garanay waynu ognahay inayna dadka dawladda xamar joogtaa u talin Hargeysa waynu ognahay laakiinse waxa weeye hadday siyaasad lahaan lahayd waxa weeye imaaraadkay ka hortagi lahayd jimciyadda quruumaha amuurtan la horgeyn lahaa maxkamadda adduunka la horgeyn lahaa sidii xadka Kenya iyo Soomaaliya xeebta maraba loo geeyay in dawladda kale ka shaqaysanayaan waddankayagii iyadoo qaramada midoobay ay ogoshahay inay Soomaali mid tahay xamar waxa yaala waxaan looma soo jeedo walaal waxa weeye iyaga isku maqan kuwa dawladda lagu sheegaya kuwa baarlamaanka intooda badan iyaga isku maqan cid Soomaali u maqan maanta ceelna uma qodno cidna uma maqna waay marka in Ethiopia soo haweysato inay ka qayb qaadato dekad Soomaali leedahay inay qayb ku leedahay waxa oyna qolooyinkan xamar joogaana ogeyn waxa weeyaan noomulkaadka lagu jiro ayay walaal ku tusaysaa waa ka koobaad talabaadna waxa weeye haddii laga xoog roon yahay oo imika mesela Ethiopia sheeganaysa 19% dekada berbera wixii ka soo baxa waxaan joogi jiray magaalada Djibouti markii Dubai hay loo dhiibay dekada markaas dadka dekada ka shaqeeya qaar aan istaqaanaan waraysto waxaan ku bal ii waramo faa'iidada inaga soo gashay meesha maxay tahay oo Ethiopia waa tan ka mabsuutay meesha waxay ii sheegeen waxay yiraahdeen dadka xamuulka gawaarida qaadaysa Ethiopia ka imanaysa dekada Djibouti imanaysa waxay yiraahdeen batroolka intayna xadka Djibouti soo gelin ayay Ethiopia ka soo qaataan si ayna shilin uga bixin wadanka Djibouti magaalada Djibouti labaad waxay sheegeen cuntadooda iyo canjeeradooda inay soo qaataan si ayna cunto uga iibsan magaalada Djibouti marka waxa weeyaan dawlad Ethiopia tashatay waaye mabda bay leedahay inay Soomaali curiyaan noqoto ku tashatay marka qolooyinkan xamar degani way haday leeyihiin waxaan raali kama nihin marka ugu horeysa waxay safaarka Ethiopia joogay sila Soomaaliya dhex degan in loo yeero oo la yiraahdo arrintan hala macnayo
wasiirka amuuraha dibadda si degdega ugu tago magaalada Addis ama African Union ku yidhaaho waa la naga gardaran yahay hal Ethiopia la tagaya waa loo qosqoslaya kaysa fiirkii looma yeelayo marka inuu Xasan Khayre ra'iisul wasaaruhu inuu yidhaaho arrintaasi waa sharci darno kama raalinayn de waa hadalka dabayshu qaadaysan faa'iido lahayn walaalweyn way ugu dambeyntii Soomaaliya waxaad ogtahay dawlad rasmi oo la aqoonsan yahay ka jirta marka ay timaado heshiisyada noocan oo kala ah oo la gelayo haddii aan halayd shirkado iyo dawlado intaba heshiis aanay dawladda ama madaxdeeduba wax ka ogeyn sharciyan ma kula tahay in la geli karo Dubai iyadu walaal waa hore goosatay inay Soomaaliya ka dhex shaqaysato waa taboosaas amuuraha ka wada dadka reer boosaas ku kaceen dekada ka shaqaysta waadigan arkaya berbera waxaad arkaysaa baarlamaanka inay qaar lacag siiso muqdisho degan si ay dawladda u xilfaa ugu qaadaan markii dawladdu ay qorshaha soo dhigtay inay dhexdhexaad ka tahay amuuraha kala dhex yaala qatar iyo dawladaha carabta jaarkeega lacag bay qaar siinaysaa si xilfaa loogu qaado kuwan gobolada ayay lacag siinaysaa Ethiopia ciidamadoodii jooga gobolada oo aan kuwan madaxda sheeganaya goboladu hayna dhaqaaqi karin waa meel maxmiyada meesha noqotay iyo laaluuska laga iibsan karayo marka sharci waxaan hadii la isla tago maxkamad sharci maaha waxaan Dubai hay saxeextay oo dawladii la ictiraafsanaa ma saxeexin laakiin dawlad furudaa haday jirto oo xamar fadhida oo noomulkaha ku jirto oo quurinaysa oo hadii nuska dambe dadkeegii la cunay aan ogeyn mar hadal ay soo tuuraan mooyaane waxa weeyaan waa la iska shaqaysanoo adduunyada kale kuma soo gurbanayso ilaa adigu had jirtida adduunyada inaad nooshahay siyaasadii ma taala xamar madaxnimo ma taala xamar markaas run loo sheegto waxa weeyaan markaa dadka Soomaalidu inay ku toosaan inay aayahooda ka tashadaan iyo in kala wada waayahay aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo igu waramayay qadka telefoonka isagoo jooga Koonfur Afrika